laba beelood oo walaalo ah oo degan deegaankaas ayaa dagaal ku dhex maray waxa ku dhintay 6 nin baa ku dhimatay ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay dagaal laba beelood ku dhex maray deegaanka Afbarwaaqo ee gobolka Mudug dagaalka ayaa la sheegay inuu ka bilowday aana horay u dhex taalay labada dhinac ciidamo isku dhaf ah oo ka socda maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa gaaray deegaanka oo dagaalku ka dhacay oo kala dhex galay maleeshiyaadka Cabdifataax Cali Faarax waa taliye ku-xigeenka ciidanka ka socda Galmudug waxaana uu iga waramay dadaalada ay wadaan iyo halka ay haatan wax marayaan laba beelood oo walaalo ah oo degan deegaankaas ayaa dagaal ku dhex maray waxa ku dhintay 6 nin baa ku dhimatay adiga 8 nin waa ku dhaawacan marka dhimashadu iyo dhaawacu ma labada dhinac ee dagaalamay ay ka soo wada jeedaan mise waa hal dhinac labada dhinac bay ka soo jeedaan dhaawacu 4 iyo 4 labada dhinac 4 dhinac iyo 4 dhinac dhimashaduna waa 5 dhinac iyo nin dhinac dagaalku marka maxuu ka bilowday dadku waa iska dagaal sokeeye oo shaqaaqo hore oo laba nin ay ku dhimatay ayuu daba joogay dadku meeshay roob ka wada degeen dad awal wax ka dhaxeeyeen oo maaragtay reemiyo dad wax ma garataa oo maaragtay buu ka bilowday waa wax sabab la'aan mucjisooyinka Soomaaliya yaalo dagaal beeleedkaas meel kasta ka taagan oo markasta iska dhaca way wax noocaas way adigu hadda xagee baad joogtaa oo aad igala hadlaysaa meeshii waxaan joogaa dagaalku shala ka dhacay oo ciidamadu isku horfadhiyeen ayaan nimid xalay ciidamadii baa meeshii ku kala qaadnay goobtii uu dagaalku ka dhacay baan hadda ku sugana marka ciidamadii dagaalamay beelaha halka wada degan wali ma is hor fadhiyaan mise waa la kala qaadayo mid walba deegaankiisa lagu celiyay waa kala qaadnay labadii tuulo oo isku dhow oo ay ka soo kala jeedeen ayaan ku kala geynay meeshii dhexda ahayd oo dagaalku ka dhacay oo dhexda ahaydna ciidanka isku dhafka gobolka Mudug oo booliska ayaa jooga wararku waxay sheegayaan in Galmudug iyo Puntland ay ka wada shaqeynayaan sidii colaadan loo dami lahaa marka qaabka aad u wada shaqeynaysaan waa qaab sidee ah ciidankaaniba waa ciidan isku dhaf oo ka soo jeeda gobolka Mudug oo Puntland iyo Galmudug ah waana ciidan ay labada maamulba isku darsadeen oo ay wakiisheen wixii noocaas oo dhaca inay ka falgalaan oo ka howlgalaan ilaa iyo goormaad marka halkaas sii joogi doontaan oo aad ku sii kala dhex jiri doontaan beelaha dagaalamay ilaa intii xal laga helayo haddii alla idmo waa la xiriirnay labada maamulba waa og yihiin falkan ayagaana in meesha aan aadno oo ciidan kala dhex dhigno oo labada ciidan kala qaadno amar ka yimid labada maamul iyo oo ciidankan maamuladii isku darsaday amar ka yimid baan ku shaqeynaynaa waana iyaguna waa soo gaarayaan waxgaradkii deegaanka oo labada dhinac iyo maamulkiiba inta ay ka xalinayaanna waa ku qasbanahay inaan ku kala dhex jirno oo aan fal damba dhicin inaan ka shaqeyno marka laga soo tago in maamuladu ay ciidamo direen oo halka ay ciidamadii tageen oo beelihii aad ku kala dhex jirtaan dhanka odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ma jiraan dadaalo socda oo xal lagu raadinayo aad iyo aad waliba waa aad buu u siyaado u yahay waa jiraan odayaashu waa soo hadlayaan qayb ka midii waa timid maamulka laftigiisa labada gudoomiye waa na soo gaarayaan haddii la qadaro odayaasha dhaqanku diyaar bay u yihiin labada dhinac labada meeloodba waa la hadalnay waa u tagnay aad bayna u soo dhaweeyeen intii nabadda laga shaqeyn kara in laga shaqeeyo qayb bayna ka qaateen inay ciidamada iyo dadka ay nala wacyigeliyaan oo ay yiraahdaan dagaal intii hore dib noogu filan odayaashu labada dhinacba way nala shaqeynayaan rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan marka in xal la gaaro oo colaadan la soo afjaro oo ciidamadu ay deegaanadoodii ku soo laabtaan rajo fiican baan ka qabnaa sida xaalku u socdo haddii aan gaabis kala gelin oo dadka aan filayno inay nagala soo qayb galaan ay yimaadaan waxgaradka ah oo labada maamul ka tirsan iyo odayaasha dhaqanka oo fadhiya intuba haddii loo istaago wax ka weyn baa la xaliyaa dagaal intaasoo soo jiitamaya baa la xaliyaa mid hal mar dhacay waa la xallin karaa haddii alla qadaro